أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Sheekh Maxamed Shakiib oo ah daaci Soomaaliyeed ayaa haatan ku xanuunsanayo isbitaal ku yaalo gudaha dalka Mareykanka oo lagula tacaalayo xaaladiisa caafimaad. Sheekh oo muddo ku noolaa dalkaasi ayaa dhawaanahan xanuunka sokorta dhulyaal la ahaa, balse taasi kama reebin faafinta dacwadda diinta Islaamka uu soo waday tan iyo yaraantiisa. Arrinta farxadda leh ayaa ah in sheekha uu ku jiro qolka ICU oo halkaasi ka wado faafinta dacwadda, sidoo kalena u nasteexeynayo laba ka mid ah howlwadanadiisa caafimaad ee sida dhow ula tacaalayo bogsashadiisa. Muuqaal oo iska soo duubay isla markaana soo dhigay bartiisa Facebook ayaa laga arkay sheekha oo kelmadda tawxiidka u qabanayo kalkaaliyihiisa sida gaarka ah ula socdo xaaladiisa caafimaad iyo gabadha u qaabilsan cunto karinta. Muuqaalka ayaa sidoo kale laga arkayay sheekha oo ay u suran yihiin tubooyinka neefta siiya bukaanka xaaladda degdega ah ku sugan, aadna u itaal daran, ha yeeshee ashhaadka u qabanayo kaaliyihiisa. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Meaning in English, I testify. Okay. Say I testify. I testify. There is no God There is no God but Allah, but Allah, the Almighty that created heavens. the Know that Okay. part. أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله. رسول. Congratulations. Sheekha ayaa la xanuunsanayo sokorta dhacda, taasoo ku dhowaad 3 bilood uu la jiifo isbitaalka. Waxa uuna ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa inay u soo duceeyaan inuu eebbe xanuunka ka qaado.